qaali muwaadin iyo muwaadinad sanadkii 2016 wuxuu noo tijaabiyey si adag dhinacyo badan. Taasi waxa aan jecelahay maanta inaan tilmaamo, taasoo uu la socdo ra'yigayga. Waxaa si qoto dheer aan ugu kalsoonahay awoodaha qarankayga iyo dadkiisa, si aan shaki ku jirin. Tijaabada ugu adag ee aan waajahnay waxay ahayd Islaamiyiinta argagixisada ah. Sanadkii 2016 waxaa nagu soo weeraray magaalooyinka Wolfsburg iyo Ambush, iyo maalmo ka hor suuqii Kirismaska halkan Berlin. Waa xisaab ama waa arrin qadhaadh oo aad u liidata markay argagixisadu ay weerarka dadka kula kacayso, kuwaasoo halkan si ay magangelyo doon ah u yimaadaan, dabadeedna la siiyo taageero, caawimo, dabadeedna keliyata sameeya wararkan argagaxa leh. Waxaanay arrintani dib u geysanaysaa ama ku dheelayaan kuwa xaqiiq ahaan u qalma ilaalintayada. Sidaa darteed, maxay noqon kalsoonidii aan hore soo sheegay, taasoo aan ku habboonayn murugada qotada dheer ee dadka kuwa dhintay iyo dhaawacaba. Waxaan u malaynayaa halkan Berlin iyo magaalooyinka kale ee Jarmalkaba waxay noqotay mid aad u adag ama xaalad aad u adag, gaar ahaan maalmaha adkaa. Waxaanan dareemaynaa raaxada waxaanu ka helnay dadka kale iyo go'aan dhab ah oo lagaga soo horjeedo caalamka argagixisada iyo nacaybka, annagoo kaga hortagayna bini'aadamnimadayada iyo wadajir. Iyadoo hore loo soconayo argagixisada, waxaanu leenahay waxaad tihiin dilayaal nacayb ka buuxo, laakiin qorshahayaga ma qaabayn doontaan qaabka aan anagu doonano inaanu u noolaano nolosheeda. Waxaan nahay dad xora, xanaaneyn leh oo furfuran. Markaan waajahnay muuqyada ama sawirrada magaalada la garaacay ee Aleppo, Syria, waxaanu ku celcelinaynaa siday muhiim u tahay inuu waddankayagu qaabili doono kuwa u baahan ilaalintayada, isla markaana ka caawinayo inay waddankan la qabsadaan ama isdhexgal sameeyaan. Waxaasoo dhammi waxay falcelin u yihiin dimuqraadiyaddayada iyo xukunka sharciga iyo qiimahayaga. Tani waa waxa ka dhigtay falcelin caalam ay ka buuxdo nacayb argagixiso. Waanu ka adagnahay markaanu midowno. Waddankayagu wuu adag yahay. Waddankayagu wuxuu haystaa wax kasta oo uu ku damaanad qaado ammaanka muwaadiniintayada si xorriyad ah. Hawshiinu may dhammaan. Sanadka dhammaaday waxaanu xoojin adeegga ammaanka. Sanadka 2017 ama sanadka soo socda, haddii loo baahdo, dowladda Jarmalku waxay si degdeg ah u hirgelin doontaa iskudubaridka sharciyo iyo siyaasado dheeraad ah. Fikradda ay dad badani ka haystaan sanadkii 2016 inuu caalamka ka dhacay xaalad qas ah, waxyaabo badan oo la hiigsanayay ayaa su'aal galay. Waxaa tusaale u ah Midowga Yurub, baarlamaanka dimuqraadiga ah oo aan u adeegayn muwaadiniinta doonistooda, laakiin dheef kula in yar mooye. Taasina waa muuqaal la leexiyay. Haddaba, Angela Merkel
iyadoo hadalkeeda sii wadataa ayaa waxyaabaha ay kusoo qaadatay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo midowda Yurub u jeedisay dhaliil taas oo dhaliisheeda ay ka dhex muuqdeen hadallo qeexaya ama ku tusaya sida midowda Yurub uu qaxoontiga ugu eegay waddankan Jarmalka ama uu midowda Yurub uga soo qaaday in waddanka Jarmalku keligii uu qaadi doono mas-uuliyadda qaxoontiga ama aanay la qaban sidii ay qaxoontiga ay ka doonayeen ama qaabilaadii ama gacantii taageero ee ay ka doonayeen. halse oo Angela Merkel ay sheegtay in uu midowda Yurub uu yahay gaabis isla markaana ay ku eegeen howlihii qaxoontiga iyadoo si dadban dhinaca kale u taageertay arrimaheedii qaxoontiga ama siyaasadeedii qaxoontiga taas oo ay ku caddaysay hadalkeeda iyadoo sheegtay in dadka u baahan ilaalinta caalamiga ah ama qofka u baahan inuu ku noolaado waddan nabada waddankiisina dhibaata ay ka dhacday waddankan uu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo isla markaana ay aada carabka ugu celcelisay ama u dhaliishay argagixisada iyo dadka magaca diinta dadka ku dila. Angela Merkel waxay sheegtay in uu waddanku yahay waddan diyaar u ah isla markaana damaanad qaadaya dhammaan muwaadiniinta waddanka degan ammaankooda iyo in ay la dagaalami doonaan argagixisada. dhanka kale Angela Merkel waxay aada uga xumaatay weerarkii dadka lagu laayay ee Berlin. ugu dambeyn waxay fariin u dintay dadweynaha Jarmalka dhammaantood iyo faamiliyadooda oo ay u rajaysay sanad wanaagsan iyo caafimaad.